sidaad arkaysaan lafko iga go'ay dad badan ay soo wacooyo sidaad arkaysaan maanta waxaan ku gudi jirnaa dhiirigelinta wiilasha dhaawaca beesha xawaadle ee ku soo dhaawacmay dagaalka arintan waxa looga goleeyahay waxa waaye si wiilasha loo siiyo moral support wiilasha markii isbitaalaadka laga soo saaray waxaan u sameeyaynaa maanta hilibka oodkaca oo geela si wiilasheenu ay durbaba intii bogsadaan ay furmaha dagaalka uga qayb galaan mar labaad insha Allah guul ayaan u rajaynaynaa caafimaad waara ayaan u rajaynaynaa halkan waxa ku jira kuris geel waay qofkii yaqaan kuris geel waay digsigaas weyn waxa ku jira kuris geel waay wiilasha waxa la rabaa durbaba inay istaagaan oo waxa la rabaa ay dagaalka haddana hore uga laabtaan barnaamijka hilib qalka oo geela oo wiilasha lagu baanina beesha xawaadle waxa soo agaasimay gabdhaha beesha xawaadle waxa hogaaminayna maamul nadar tabax maalin oo ah maayarka magaalada Beledweyne daawadayaal sidaad u jeediinba waxa waaye moral support-ga loo sameeynayo wiilasha beesha xawaadle ee ku soo dhaawacmay dagaalkii lagu jiray nimanka al-shabaab insha Allah wiilasheena garabkoodan taaganahay guul ayaan u rajaynaynaa mar walba haday dhaawacmaan iyo haday dhintaanba kuwii dhintayna agoontooda waa la ogaanayaa kuwa noolne waan garab istaagaynaa insha Allah sidoo kale waxaan ka maqnayn qaybtii quraan saarka oo bariiska iyo alaabaha soo kale ayagana wiilasha maanta quraanna waa loo aqrinaa si u caafimaadaan hilibna waa loo jaraa si ay u kabtaan oo dhibaatadii dhaawac iyo waxaas ay uga kabtaan waxaan rajaynayaa inaa u soo duceysiin dhammaantiin si ay uga qayb qaataan